بسم الله الرحمن الرحيم. محمد شرفتا مسؤولينta kala duwan madaxda jaamacadda macallimiinta ardayda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudanayaal iyo marwooyin oo horay sharaf weyn bay tahay inaan idinkala soo qayb galo xafladda qalinjabinta dufcadda shanaad ee jaamacadda Golis ee Burco. si gaar ah waxaan u hambalyaynayaa ardayda maanta halka ka qalinjabisay kulliyadda jaamacadda Golis ee Burco. sidoo kale waxaan hambalyo bogaadin mudan waalidka kasoo dulcay iyo cid kastoo gacan ka geysatay guusha ardayda gaadheen. mudanayaal iyo marwooyin, aniga oo madashan iyo munaasabadda ku faa'iidaysanaya waxaan jecelahay inaan ku bogaadiyo maamulka, madaxda iyo macallimiinta jaamacadda Golis ee Burco dadaalka iyo horumarka ay gaadhsiiyeen jaamacadda muddadii ay jaamacaddu ka jirtay gobolka Togdheer. waxaan qirayaa in jaamacadda Golis ee Burco ay kaalin weyn oo la mahadiye ka qaadatay horumarinta, tayeynta iyo casriyeynta waxbarashada gobolka. waxaa kaloo aan qirayaa in jaamacadda Burco iyo jaamacadda Golis Burco ay labaduba horumar weyn ka sameeyeen dhinaca tayada aqoonta muddadii aan qarankan odayga ka ahaa. isbeddelka laxaad kale waxaa sabab u ah siyaasadda waxbarashada ee aan dalka ku hogaaminayay iyo maamulka jaamacadda iyo maamulka labada jaamacadood oo ay hormuud yihiin Professor Salabaan Dirir Cabdi iyo Professor Cabdilxakiim Maxamed Cabdilaahi oo halkan aan uga mahad celinayay. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa xusid mudan in ardayda ka bixi jirtay dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee gobolka Saaxil, gobollada Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag ay ahaan jireen kuwo aad u hooseeya dhinaca darajada jaamacadaha shahaadiga ah marka la barbar dhigo gobollada kale wixii ka horreeyay 2010kii. xukuumadda xisbiga kulmiye aan galwadeenka ka ahay waxay ku guulaysatay inay waxbarashada ay kor u qaaddo isla markaana ay soo gaadhsiiso gobollada kala durugsan. waxaa markaati la doon ah u ah arrimaha in gobolka Togdheer uu safka hore kaga jiray sannadihii u dambeeyey natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah dugsiyada sare iyo kuwa dhexe. kasakoo horumarka kala duwan aanu ka soo kordhinay gobollada Togdheer waxaa kor u kacay tirada iyo tayada waxbarashada kulliyadaha jaamacadda Burco iyo jaamacadaha Golis Burco. duca qabayaan, waxaa idinku gowaabinayaa inaad ka fogaataan dhaqamada xun ee aafeeya ilbaxnimada iyo horumarka bulshooyinka caafimaadka qaba sida kala qaybsanaanta, qabyaaladda, tahriibka, galnacaybka iyo balwadaha. sidoo kale waxaa kaloo idinku dhiirigelinayaa inaydan waxbarashada ka daalin aad halkaa kasii wadaan. mudanayaal iyo marwooyin, sida aad la socotaan waxaa maanta dalka ka bilaabmay ololihii doorashada madaxtooyada. doorashooyinku ma aha kuwo inagu cusub oo waxaynu leenahay khibrad iyo waayo aragnimo. hase yeeshee waxaa jira da'yar badan oo aan hore u codayn. sidaa darteed waxaa waajib inagu ah inaynu adkayno nabadgelyada, midnimada iyo wadajirka ummadda. waxaa waajib inagu ah in la isku ceebsan kala duwanaanshaha aragtiyaha siyaasadda. cid waliba waa in lagu ixtiraamaa fikirka iyo aragtida ay aaminsan yahay. waxaan shacbiga Somaliland mar labaad ugu celinayaa inaanay musharaxiinta xaq idinku lahayn inay idin dhex geliyaan colaad iyo ciilqab, balse ay xaq idinku leeyihiin oo keliya inay idin weydiistaan cod iyo caawimo. ugu dambeyn, waxaan shacbiga ugu baaqayaa inay doorashada ku galaan nabad iyo deganaansho. waxaa reeban fidmo abuur iyo fadqaralo
guulaysta guulaysta guulaysta